halkee loo jeedaa waa laba midood haddii isbeddel dhaco muddo kooban laga raayo Iiraan la qabsado ama sidii Venezuela dhexdooda la habeeyo oo Iiraan laga adkaado Ameerika iyo Israa'iil dabaaldegaan reer cigaal weyne waa dameere dhaan raacday ee Sacbiya hadday taasi dhacdo waa tan koobaade dhaqaalaha adduunka iyo bariga dhexe way soo kaban doonaan magtii diyaaradaha iyo saldhigyadii burburay carabta bixi doonta riyadii Israa'iil from river to sea min an-nahr ila al-bahr badda cas ilaa webiga Dajle iyo Furaad ayaa soo dhawaan doonta inay rumoodo dalka Iiraanna mushkilada hor leh ayaa u bilaaban doonta oo urur diimeedyo sunni shiico qowmiyado carab faris iyo bashtuun ay u kala furmi doonaan danta Israa'iil iyo Mareykan ma aha dawladnimo Iiraan ee waa wiiqida awoodeeda mar haddii ridaan danka ma laha cidda talinaysa haddii isbeddel degdeg ah uu dhici waayo muddadu dheeraato lana ridi waayo taliska Iiraan ayay guul u tahay markasta dagaalka u dheeraada Mareykanka iyo Israa'iil waa u dhabar jabin u dheeraado carabna waa u cadaab adduun in lagu dul hardamo meel ay u ciirsadaanna aysan aqoon wax soo saarka shidaalka adduunka oo burburi doona taasi haddii ay dhacdo dhaxalkeedu waa dhaqaalaha adduunka oo duma ama hoobta Israa'iil oo fadeexad dhex istaagta ayna sababi karto isqaqabsi dhexdooda ah oo eedeymihiina Netanyahu iyo feelashii MST isla aado haddii dagaalku guul ku dhamaado guul ayuu rabaa inuu sheegto hadduu sa dheeraado waa u dharbaaxa xoogan carabtii dhismaha dhalaalka baabuurta iyo hablaha bariga Yurub laga keenay lagu indhasarcaatay oo ay macquul tahay inay teendhooyinkoodii ku laabtaan dalal badan oo Pakistan iyo Turkiga ay ku jiraan ayaa u dabaaldegi doona maadaama mawjado ku soo socday laga moosay kaalayo ina keena dalkeena Soomaaliya inkastoo dagaalku ka dhacayo meel ka baxsan Soomaaliya haddana saameyntiisa dhaqaale amni iyo bulsho si toos ah ay u taaban kartaa nolosha shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhinaca qiimaha nolosha gaadiidka oo qaali noqda qiimaha raashinka oo kordha iyo dhibaatooyin kale oo iskuwan kuwaasi oo Soomaaliya gaar u sii noqon kara maadaama hanaanka dawliga ah ee dalkeena uu sanadkeen isla markaana aan u nugulnahay faragelin shisheeye oo kasta Soomaalideena ay talo waxaan beerana ma cunno shidaal looma qodna agabkii dhanna waa wada korontoobay maxaa inoo xal ah ayaan idin weydiinayaa inaan cidda ugu liidata carqaladan soo caarinaysa noqon doono iyo inaan carab dhaami doonana caadilka kulleeyo isna waxa weydiisanaynaa inuu naga